hadalhayn xoog leh iyo falcelin ayaa ka timid saraakiil ka tirsan xoogga Soomaaliya oo lagu arkay iyaga oo baranaya kaxaynta iyo sida loo hago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay dalka Turkiga farsameeyeen. Diyaaradahan bilaa duuliyaha ah ee iyagu iska xeeyay loona yaqaan Bayraktar TB2 ayaa waxaa saraakiishan Soomaalida ah ay dhameysteen tababar lagu barayay iyagoo ku sugnaa xero ku taalla magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. xukuumadda madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa doonaysa in ay Soomaaliya ka taageerto sidii mustaqbalka dhow loo siin lahaa diyaaradahan si ay uga takhalusaan dagaalka ay kula jiraan dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab Soomaaliya weli waxaa saaran cunaqabateyn dhinaca hubka ah oo dowladdu ma ay soo iibsan karto ama lama siin karo oo dal ma uu ku tabaruci karo hub ilaa qaramada midoobay ay xayiraadaasi qaado. Turkiga ayaa ah walaalka ugu dhow ee Soomaaliya dhinaca taageeridda ciidamada iyagoo xero weyn oo Turkisom ay ka sameysteen magaalada Muqdisho. Dowladda Turkiga oo ay askar badan ku soo tababareen sanado isxigxigay xilli ciidamada booliiska sida gaarka loo tababaro ee Haramcad iyo kuwa xoogga dalka ka tirsan laanteeda Gorgor ay Turkidu tababar culus siiyeen, maantana ay qayb ka yihiin kuwa aadka looga boqo marka ciidan ahaan la sheego gudaha Soomaaliya.